meel foolog yaa igeeyay waan gaabtay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhammaan dadka Soomaaliyeed iyo martida meesha joogto waa salaamayaa. waa laydin hormariyay oo waad qiyaasi kartaan hadda laftirkeeda codku sii furmayaa waxaan maleynaa iska fiicnaan doono. marka hore runtii farxad weyn iyo sharaf bay ii tahay oo markii koobaad noloshayda adduunka intaan noolaa ee aan dad Soomaali ah oo Soomaalinimo isugu yimid oo intan la hor istaago aad iyo aad baan waxaan jeclaan lahaa iyadoo codku ii furan yahay oonan dureysanayn inaan dam kaga siiyo oo lagu kala baxo laakiin dib ma laha waan kaga siiyey isagoo cusub oo fresh ah baynu shidanaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo. hadda ka hor markaan Australia imid Soomaalida Australia waan waayey waan deydey waan arki waayey laakiin maanta waan idin arkaa in badan oo idin ka midana waan arki doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo. inta badan Soomaalidii galbeedka u soo baxday markaan fiirino wadamada reer galbeedka dad muuqdo oo shar iyo khayr bala bay ahaayeen laakiin Soomaalida Australia ma aqaan ma mise dhul bay soo wada galeen wadamadan ciladu xaqiiqa ma aha maqalka marka waxaan u bixiyay Soomaalida Australia markaan imid burod inaad taqaanaan way jirka meel bay ku taalaa dhib badan inaguma hayso nacfina dee ma laha waa buro marka dad aan dalkii iyo dadkii nacfi iyo murtaan u lahayn bay igu muuqata Soomaalida Australia. marka horta bal inaga tiiriya haddaynu nahay Soomaalida Australia waa layna xantaay aniguna dadka dibadda jooga in badan baan ku dhex jira asxaab badan baan ku leeyahay marka waa layna xantaa horta inaga tiiriya waa qodobka koobaad. qodobka labaad ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed anigoo fursadda ka faa'iideysanaya waxaan leeyahay bahalka la yidhaahdo tukaha waxaa la yidhaha wax nasiib badan isagoo meelaha iska qooqoon wuxuu arkayaa dhiil caana ku jiraan intuu wiil yar halka maalin uu is yidhaahdo soo toostid yar seexdayoo caanihi cabbi sodhana markaasuu qarka iskaga taagi qofkii caanaha lahaana uu seejinayaa isaguna ma cabbayo horta tukayaynaa noqonin. runtii fursad dahabi ah oo aynaan xilligan filayn kolley anigu shaksi baan ahay rajada wanaagsan iyo inay Soomaali soo noqoto oo sharafteedii iyo haybadeedii iyo karaamadeedii soo noqoto rajada awaan qabay weliba way ugu weyneed waayo waxaan ogahay dunta Soomaaliga baan ogahay dunteena asliga baan ogahay ummad la isugu tagay oo in la tirtiro caalamka laga saaro loogu talagalay inaynu nahay baan ogahay laakiin inaan nool lahay oo durba aynu maanta xilliga la taagan yahay fursadan oo kale ina soo maraysa xilliga kuma xisaabtamayno marka fursadan ilaahay ina siiyay tukihii caanaha qarka kaga istaagay yeena noqonna ka faa'iideysano de shucuurtiina way yara maqan tahay yar kululaada ban waa sidee ee gaaw furada tiina waxaan soo galay quraanka ka dib waxaan sugayay oo laba calankeedu waa cayniyo Soomaaliya toosiya sugayay meeshaan ka bilowdeen baa ya marka wali saluug ugu jira kulli caalamka la inaga daawanaya inuu dheeraan maayo laakiin reer Australia quraan soo qaado dawladeena ilaahay baa inoo dooray sida aan anigu hadda ku horsheegay maalintii farmaajo la dooranayay ma qabin maanta sidaynu nahay laakiin rajo fiican waa iska qabin markii la doortay ee uu haddana ra'iisul wasaare inta badan dadka Soomaaliyeed ay xumaan ku ogeyn wixii cadowgeen iyo wixii cadow u shaqeeyay wixii sheegayaan ma naqaano laakiin inkastoo Soomaalidu tira qof ha taqaanaan hal ceeb ugu tagtaa kaadaan aqoonin 12 ceebood oo inaan warka haynin haddana wax ceeb kuma ogin ilaahay baynu u tala saaranaynaa marka inagoo ilaahay u tala saaranayna Soomaaliya wax baadhbaadhka iyo qodqodka iyo wax fiirfiirinta iyo luuqluuqa maxaa ku jira iyo maxaa ka dambeeyay inaga daayay waynu daalay inagu waynu isku daalay caalamku inaga daalay caruurta yaryar ay mustaqbal sameeyno qurbaha caruurta joogto wallaahi waa naxaa oo qalbiga ay dilaac marka arkay ilmo yar oo Soomaaliya oo ogeyn adduunka inay Soomaali waa sharaf lahayd jirtaan ogeyn oo aan ogeyn inuu waa geeska Afrika shakhsiga Soomaaliga qaali inuu ka haaro ogeyn marka arko waa naxaa caruurteena taariikhdiga ka maqan luqadeeni baa ka maqan waxaynu kaga bixi karaan waa inuu dhulkeena ku noqono dhulkeeniina haddayna dhisanin cid inoo dhisayso Soomaaliya intaas kala qaybinta iska dayno shisheeyaha aynu dugsanayno iska dayno daciifnimada aan hoos u fooran aan iska dayno ilaahay koonka wuxuu inoo keenay isagu inaan caabudno bini aadam kale inaga sharaf badan ma jiro bini aadam oo dhan ilaahay karaameeyay inaguna waynu sii karaameysanahay
diinta islaamka ku karaamaysanay Soomaali bayna waynu sii karaamaysanay inaynu haweenaana weeyii hanka inaga dhumay aan soo ceshan oo hankeena aan soo noolayno midnimadan ha lagu dadaalo warxuma tashiirka iyo qabyaalada bahasha qabyaalada la yiraahdo aan rabay inaan ka hadlo waxaynu aaminsanahay inaynu qabyaalad tahay dhibaatadeena haysata anigu ma aaminsan inay qabyaalad tahay waayo qof Soomaali ah oo maanta qof Soomaali qabiil kaga gabanaya ama kaga kaydanaya ma jiro laakiin qabyaaladii baa intii qiimo ka yar lagu ruxay oo bahasha wax spray garaysa lagu shubay yaa laynagu buufinaya waa ina yar soo xinaysaa kolba bahasha cafleena waa laynagu buufinaya intaynu aragnay inaynu waxba dilaynin qof walba inaan roodo ah inay Ibraahim Cabdi Gure aan meel ku sii araro waan aqaana waxa ka cabsan qabiilku wax laga cabsado ma sababtu Ilaahay aayad quraanka wiilkii yara ku furay ahayd Ilaahay inooga dhigay qabiilka inaan isku garanay ahayd guriga deganta adrees doonay warqad kuma imanayso dawladda ka way imanayso waa adreeskeena qabiilku xikmad kale ma laha marka hadii ay xataa qabiil u sii baahan oo inaan ka tagayn hal qabiil baynu Soomaali leeyahay qabiil badan ma yihiin runtii marka hadda weydii aad iyo aad marba Ilaahay ugu mahadiyo waxay tahay Soomaali markii la kala qaybiyo shan laga dhigay anigu shantii Soomaaliyeed waa nacab erayga la yiraahdo kelmadda la yiraahdo suxufiyiintii la jooga baafa ila joogay waxaan marti ugahay ummadda Soomaaliyeed kelmadda la yiraahdo inta af Soomaaliga ku hadashana hana laga daayo af Soomaali kuma hadalay annaga iska leh Soomaalina waa nahay Soomaalina shan ma hal Soomaali oo qaybiyo weeyaan Soomaali shan talooqeeni waa inaan adeegsano iyo dadka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed marka lagu yiraahdo kelmaddan xun ee raqiiska inta af Soomaaliga ku hadasha waxay nusqaan ku ridaysaa jiritaankaaga iyo sharaftaadii waxaad noqonaysaa wax aan jirin sabab haddii lagu yiraahdo af Soomaali ku hadasha imisa aan ahay Soomaali af Soomaali maanta barat oo cadaan iyo midowban imisa caaw hoolka fadhido af Soomaali garanayno Soomaaliya neeshin dhan baa inaga dhumay haddii la yiraahdo af Soomaaliga ku hadasha marka kelmadda dagaal baan ka galeynaa suxufiyiinta ugu horeeya qolyaha isticmaala fanaaniinta ku xiga abwaaniintan anigu ka tirsanay baan ku xiga hana la dagaalamo kelmadda hal suuliyo kelmaddaas waxaan ummadda Soomaaliyeed ka bariyaa inta af Soomaaliga ku hadasho in la suuliyo meesha lagu arko shanta Soomaaliyeedna in la suuliyo Soomaali waa hal mid oo shan loo qaybiyay waa inaynu soo celinno midnimadeena sharafteena waa inaynu soo celinno waxa wax lagu naaloodo oo lagu farxaa Soomaali markii la qaybiyo shan laga dhigay inaan qoomiyada kale la dhex dhigin oo qoomiyada kale oo in kala xijiyay oo in kala soocayeen jirin inayna kala xidhnayno inaan xadad kala lahayn xadadka beenta laynoo sameeyay inayna waxba macnaa inoo sameeynayno aan isku furanahay la kala guursado la isdagaalo geeri la kala qaado la isla yaalo runtii waa wax Ilaahay lagu mahadiyo oo nicmooyinka Ilaahay inasiyo kamida waxa soo sharaf iyo nicmo abaynu haysanaaye intaynu garanno waa inaynu caruurteena mustaqbal u sameeyno halna waxa leeyahay dadka waaweyn ee da'da kontonka gaari wixii ka shisheeyay waqtigiina waad soo qaadateen waxaad xumayseen iyo waxaad wanaajiseenba waad soo dhaafteen dhalinyarada Soomaali dalka Soomaaliya maanta dadkiisu ugu badan waa 30 jirka dadka ugu badan dadka 30 jirka fursad hala siiyo iyagana waxa leeyahay idinka mustaqbalka iska leh odayaasha iyo islaamaha dambada gilgilaya qabiilka wali boofinaya ee iyo kuwa bahalka wata dhinaca sida riixdaan mustaqbalkiina u taliya caruurihiina u taliya aad iyo aad baad u mahadsantihiin wiil iyo barwaaqo